injiilka sida Mataayos u qoray cutubka 7 ninna ha xukumina inaan laydin xukumin waayo xukunkii aad ku xukuntaan ayaa laydinku xukumi doonaa oo qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa saxarka isha walaalka ku jira maxaad u aragtaa dogobka ishaada ku jira se aad u fiirsan weyday sidee baad walaalka ugu odhan kartaa iddaa saxarka ishaada ku jira aan kaa saare oo dogobbaa ishaada ku jire laba wajiilayahow horta dogobka ishaada ku jira iska saar goortaasaad bayaan u arkaysaa inaad saxarka isha walaalka ku jira ka saarto waxa quduuska ayaha siinina luulkiina doofaarada hortooda ha ku tuurina si ayan ugu tuman oo ayan idinku soo jeesan oo ayan idin kala jeexjeexin weydiista oo waa laydin siin doonaa doondoona oo waad heli doontaan garaaca oo waa laydinka furi doonaa waayo mid kasta oo weydiista waa la siiyaa kii doonaana wuu helaa kii garaacaana waa laga furi doonaa ninkiinne baa haddii wiilkiisu kibis weydiisto dhagax siinaya ama hadduu kalluun weydiisto abayso siinaya haddaba idinka oo shar leh haddaad garanaysaan inaad hadiyado wanaagsan carruurtiinna siisaan intee ka badan ayaa aabbihiinna jannada ku jiraa wax wanaagsan uu siin doonaa kuwa isaga weydiista haddaba wax kasta oo aad doonaysaan in laydin sameeyo idinkuna sidaas oo kale u sameeya waayo kanu waa sharcigii iyo nebiyadii iridda cidhiidhsan ka gala waayo iriddu waa weyn tahay jidkuna waa ballaadhan yahay kan xagga baabi'idda u kaca oo kuwa ka galaa waa badan yihiin waayo iriddu waa cidhiidhsan tahay jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kaca kuwa helaana waa yar yihiin iska jira nebiyada beentaa kuwa idinku imanaya iyagoo qaba dharka idaad laakiin hoosta ka ah yay wax boobaysa midhahooda ayaad ku garan doontaan canab ma laga guraa geed qodxan leh berdana ma laga guraa yamaaruga sidaasaa geed kasta oo wanaagsani midho wanaagsan u dhalaa geedkii xumina midho xun u dhalaa geed wanaagsanu midho xun ma dhali karo geed xumina midho wanaagsan ma dhali karo geed kasta oo aan midho wanaagsan dhalin waa la jaraa oo dabka lagu tuuraa sidaa darteed waxaad iyaga ku garanaysaan midhahooda ma aha qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyada jannada gelaya laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa gelaya maalintaas qaar badan baa odhan doona rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniyo ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaal yahow haddaba qof kasta oo hadalladaydan maqla oo yeela waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli leh oo gurigiisa ka dul dhistay dhagaxa roobkii ayaa daay daadkiina waa yimid dabayshiina waa dhacday wayna ku dhaceen gurigaas oo ma uu dumin waayo waxa laga dul dhisay dhagaxa qof kasta oo hadalladaydan maqla oo aan yeelin waxaa loo ekaysiinayaa nin doqon ah oo gurigiisa carrada ka dul dhisay roobkii waa daay daadkiina waa yimid dabayshiina waa dhacday wayna ku dhaceen gurigaas wuuna dumay dumiddiisiina waa weynayd waxaa dhacay goortii ciise hadalladan dhameeyey in dadkii oo dhammu waxbaraddiisa la yaabeen waayo wuxuu wax u barayey sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimmada